Ma ogtahay daawade in motherboard-ku uu yahay cagaar? Mise ma isweydiisay sababta ka dambeysa in motherboard-ka laga dhigo cagaar? Haddii processka kombiyuutarkaaga uu yahay maskaxda kombiyuutarka, motherboard-kuna waa wadnaha kombiyuutarka iyo xididdada qaada kombiyuutarkaaga. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Xasan, halkaad iga daawanaysaan waa Cabdiraxmaan Media. Haddii aad igu cusub tahay subscribe sar si muuqaalada aan soo geliyo ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta. Ma isweydiisay mishiinka rasmiga ah ee isku xira dhammaan qaybaha kombiyuutarkaaga? Haddii processka uu yahay maskaxda kombiyuutarkaaga, motherboard-kuna waa wadnaha iyo xididdada kombiyuutarka. Maanta waxaan idiin soo bandhigi doonaa safarkii la yaabka lahaa ee soo maray motherboard-ka laga bilaabo xilligii uu dhashay ilaa iyo maanta xilligaan joogno. Motherboard-ka goormee la soo shaac-bixiyay? Taariikhdu markay ahayd 1981 shirkadda la yiraahdo IBM ayaa soo saartay kombiyuutarkii ugu horreeyay oo motherboard markaas lahaa. Motherboard-kaas markaas lahaa waxaa loo aqaani jiray wax la yiraahdo planar board. Planar board ayaa loo aqaani jiray, waxayna ahayd markii ugu horreeyay oo hal loox lagu wada rakibo. Maxay tahay sababta ka dambeysa in motherboard-ku uu noqdo cagaar? Sababtu ma daawade qurux waxaa loogu doortay wax la yiraahdo solder mask. Xilliga hore waxaa loo keeni jiray in indhaha bini'aadamka ayaa lagu baari jiray si maaragtay cilada jirta loo ogaado. Haddase midabka cagaarka sababta loo doortay waxaa weeyaan in indhaha maaragtay sababta loo doortay waxay tahay in la ogaado khaladka meesha uu ku jiro iyo cilada meesha ay ku jirto. Daawade motherboard-ka arkaysa maanta wuxuu soo maray 3 marxaladood. Marxaladda koowaad waxaa la yiraahdaa simple start. Simple start waa qaybaha kombiyuutarka sida dhawaaqa, soondiga iyo sawirka graphic motion-kiisa. Waxay hayaan kaarar gooni ah oo kombiyuutarka gooni lagu xiro. Markaas wax ay qabanayeen oo Ilaahay abuurtay ma jirin. Maxaa yeelay tabar iyo awood ay wax ku qabtaan markaa ma jirin. Marxaladda labaad waxaa la yiraahdaa modern beast. Modern beast waxaa weeye sanadii 90-meeyadii u dambeeyay motherboard-ku wuxuu bilaabay inuu noqdo wax kasta. Sound hadday noqoto, internet hadday noqoto, LAN-kii, graphic motion-kii, waxaasoo dhan wuxuu bilaabay inuu noqdo, waxaana loogu sameeyay hal box. Marxaladda sabaad waxaa la yiraahdaa call action. Maanta motherboard-ka wuxuu leeyahay wax la yiraahdo RGB. RGB waxaa weeye heat sinks, qaboojiyaal aad iyo aad u waaweyn kuwaasoo si xawaare leh ku socda oo kombiyuutarkaaga mar walba qaboojinaya. Daawade sidaas ayuu motherboard-ka maanta ku soo koray oo ku noqday mid casri ah. Haddii aad ka heshay muuqaalada aan soo geliyo, fadlan subscribe inoo saar. Channel-ka iga daawanaysana waa Cabdiraxmaan.